السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرصة أن ما أنت وحنا ربع دمان بعض الصحافة إنهم كل سلامه كدبنا محاوة هاي أنا جو حسن الشيخ محمود مدحويني وهراء قدومي حزب UPD ما أنت هالك وحنا مدينة ومضى الصوماليات يا عالم كأنت بقى جالسينه دعنا إن شاء الله يكاد عاد المجال مقدسه بدأ كوبات إن كحنا هاي سيدة وحب عين مدة لبعضنا وعنبارين هنا عن ربنا ضدك الصوماليين أنا وعدينه دعنا الدولة نمو راتكم لها مدحوين الشيخ شريف مدحوين الجمهورية ده حليكم الجار كاي كسر دل كان نين وضيع هو محمد كرا حشمة بدن ضدك إياه جمهورية الحديد كله إن شاء الله دقن كنوع ساس لورا دق ماهي سمال أي صح كتاي مجرد قانونيا صح معها ضدني ما نصحكم معها محمد كرا دولة نمو أنت بصر صحكم معها شلي فعل كأرباركم مقدسة كدعي شرعنا مدك سنة دولة نمنا مدك سنة ضدني ما كلنا مدك سنة قضبك كوي لواتنات الدستور كوميل جاركا فقرة دي سكوبات وحكى لما كان لقى صوته دقائق حرية دا قف مواطن كأولو الماما اسكدا قف مسؤولية سواء قبطي أو مدعونا جمهورية صار نقضي أو دل كان ظروف أدق أو بدن كسر صاري هل كان أدق نفتي سخري خطر وسوق لي أو مدرح حديد كرامة كله مضن إنسجون لويني وهل كده وعن عض دار مرك أن كدي دنها فعل كنوع عاص دولة مدن جعلنا هاي قانون كان جعلنا هاي دستور كاحترام بدن وينين بدن وهينا دل كان يمشي وجوج إنه هرق الصعود أو دقائقان ربنا لكن وحي أنا دولة ما كينين كده يمينو نف أنا محانكو هذا وحين أنا محوا هاي جل عمينا أما كأمس مينا عطيران كلنا هاي وحاسي خلد أهين وأنا خلد شلنا خلد أهين ما أنت وخلد بريها ديسي سعودنا وخلد عواقب حمكن عواقب حم بدن إكاد أنا كرتو إن صورة قلتها دول ما ديده هوده يهود الصومالية وقرنا إنسان كون سجال بقول يسجاشن يشن يونس عمر كيدل كان كتكت أي هود الصومالية أنا للالي ما ملك هذا اللود يبه أد صدق سنة كدواد أي هاد هي أداس قعنت كويسة لعقت هودا لقى قاضي هي أداس قاضو ضدك الصومالي ده وحوين لو ما قبل جري وما مدح بنانين عن دلال أدق لو صو قلي هودا سيد لو سو علي لهاي وما ملك الصومالي لو سو علي لهاي وده حاجودي بدنا لقى قلي دولة قبلية ده رالي كأها محنكو هذا قيبها كل دون ومجتمع بالشدة لما رالي كأهدي إن أي نوصل نقطة هودا ده ما ملك التلذيذ markii ugu horeysay soo noqotayna inay waxaas dhacaan waxay dib u keenay in haddana un hawada faraheen ay ka baxdo ay dib u noqoto haddana macquul ma aha dadka la diiday inay dhoofaan iyo kuwa maamuladooda iyo shacabkoodii iyo humanitarian koodii muxuu ay gargaarkii loo fidinaya dadka la hor taagan yahay diyaaraduhu ma dhaqaaqa kara hawada waa xirantaa la leeyahay waa kuwii shalay cod dheer cod gaaban ku yiri maxaan ku yiraahdaa hawadeena annaga iska leh hanoo soo celiyo oo dawladii maxaan ku yiraahdaa dawladda Soomaaliya ku garab istaagtay dawladnimadu shalay ma aha maanta ma aha waa ka sii horeysay shalay maantana way ka dambeynaysaa dad badana u soo istaagay in hawada waqti dheer iyo wada dheerna waa qaadatay inta jeero loo safray Canada loo tagay xarunta ECAWA loo tagay madaxda ECAWA warqada dacwo iyo wax walba loo qoray si hawadan wada dheer ay soo martay maanta marka in ay dhaqanka noocaas oo hub siyaasadeed loo isticmaalayo oo kii iga fikir duwan waa ku cadaadinaya in la yiraahdo wax macquula oo maxaan ku raacay ummadda Soomaaliyeed ay u qalmaan ma aha waana basic rights ama xuquuqda asaasiga aan sheegayna oo muwaadinka iyo deegaanka iyo dadka Soomaaliyeed ay waxay ku tahay ku xadgudub weyn marka waxaan rajaynaynaa dawladdu inay indhaha kala qaado oo ay fahamto wali waxaan rabnaa dawladdeenu inay fahamto dalkan meesha uu ka yimid meesha uu marayo meesha uu socdo dawladnimo dhameystiran maxaan ku raadayay xuquuqdeena qarannimo oo aan adduunyada ku lahayn oo dib noogu soo noqoto aqoonsi iyo ogolaanshiyo ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda aan ka wada helno lagu madaawabayo Soomaalidu waxay ku maamaadaa calool waxay ku bukata lagu madaawayo dhaqanka noocaana shalay dalkeena ku burburay dawladnimadeena ku burburtay maanta daawo inaan ka jirino oo dawladda maxay ku xoogeysanaysa dawladda ku muuqanaysa la dhaafna dawlad intaan ka xoog badan shalay waxaan wax lamid inta la timid dadku diideen war maanta waa soo kabanayna waa soo noqonayna wixii shalay dhaqankii xumaayshana dilay cudurkii shalay nagu dhacay
maanta inaan haddana cudurkii aan doondoonanahay macno badan ma samaynayso. arrinta waxaa soo hartay maamul goboleedyada. dalkan nidaam federaalahu qaatay 2004 shirkii ugu dambeeyay dibad lagu qabto in bagaasa lagu qabtay ayaa dadka Soomaalidu isla soo ogolaadeen nidaam federaal in la qaato. 2012 kongareeska xamar lagu qabtay ee dastuurka hadda jira ee ku meel gaarka lagu ansixiyay dadka ka qayb galay ergadii oo jamhuuriyadda oo dhan iyo dadka Soomaaliyeed isaga timiday waxay isla ogolaadeen dalku inuu nidaam federaal yeesho. nidaamka federaalka wuxuu ka mid yahay qaababka xukuumadda dalka ka jiro adduunyada ka jiro. aayad quraana ma aha, waa la bedeli karaa, waa laga guuri karaa, laakiin sidii shalay oo ku yimid oo dadku ay ku doorteena looga guuri karaa. dadka Soomaaliyeed inay isu tagaan yiraahdaan federaalka waa anfici waayay ee mar laakiin aniga jecel iyo aniga neceb iyo anuu ila quman yahay ana awoodeydu ku kordhinayo anuu ku dhima ma galo deedel ma galo. waa rabitaanka dadku ku yimiday waxaa looga noqon karaa waa laga noqon karaa laakiin waxaa looga noqon karaa rabitaanka dadka in inta la isu yimaado Soomaali isu timaado waa federaalki waana anfici waay laakiin qof iyo xukuumad midna ma celi karaan federaalka mana diidi karaan mana hor istaagi karaan rabitaanka shacbiga waayo oo ku saleysan yahay nidaamkaas dhib badan loo soo maray dhismihiisa wixii laga soo maray saxaafaddu aad iyo aad u ogtahay goob joogi u ahay dawlad goboleed kasta dadka Soomaaliyeed oo isu keenay oo walaalow maxaa dhihelay maxay kula tahay adiga war ka ballan war la yiri oo loo fududeeyo ayagu ay go'aansadeen nidaamkan uu ku dhismo process socdo waaye ma dhahayo mana ku dacwoonayo 100% oo sax yahay Soomaaliya maanta 100% wax sax ma jiraan laakiin wada dheer oo eber ahaan ka nimid meel fiican hadda marayna aad iyo aad wax badan noogu qabsoomeen nidaamka federalismka dhexdiisa dhibaato ka jirto wax badan oo dastuurka xaqiisa ka qabya aha jira wax badan oo maxaan ku raad dadka Soomaaliyeed inay ka doodaan iska warsadaan loo baahan yahay jira laakiin maaha dheelalawga iyo dhayalka laguma bedeli karo lagumana carqaladeyn karo dhibaato iyo waxaan dawladnimadii tii qaranka oo su'aal galeysay dadka deegaanada degana tashaday hadday wax ka qaldan yihiin war waxaana idinka qaldan sidaan si ma ahan hal la toosiyo in la yiraahdo oo la dhax galo oo la waxay u baahan yihiin waad garanaysaan ayagoo dadku isdirsan yahay isu imaan karin iswarsan karina dadku inta isu yimaadeen iswarsadeen nidaamka samaysteen waxba ka dhiman hadday wax ka dhiman yihiin in la dhameystiro oo si nabad ah iyo heshiisiin iyo dawladuna ay fududayso dadka inay macnaha afkooda isu carfiso isu keentay walaalaysan laga shaqeeya laakiin sidaani ma aha iyo siyaabihii barihii dhaweeyta dhacayo dhan si sax ah oo maxaan ku yiraahday dawladnimadeena saacidaysa ma aha marka nidaamka federaalka ah waa sida ugu sahlan ee xukunka dawladnimada uu ku baahi karo oo meel walba ku gaari karo laakiin haddii aan ku fikirno askariga booliska loo yacada ka shaqeynayo iyo midka raas kambooni ka shaqeynayo iyo midka raas caseer ka shaqeynayo halkana xamara laga bedelayaa dawladda dhexe bedelayso gabadha umulisada ay maxaan ku iraahdaa baar dheer hooyada joogto umulinaysa ama maxaan ku iraahdaa qandala muxuu ahay qoyska jooga umulinaysa ama hiiraan halkana laga bedelayaa sheekadaas taariikhdaas waa bog soo laabmay bogi soo laabmay wuxuu ku qornaa inaan akhrino macna ma sameynaysa bogon horyaal waxa ku qoran inaan akhrino waxna ku qoranna maanta waayo waxa loo taagaya marka si kasta nidaamka federaalka lagu guuri karaa qaabkiisa la cayimi karaa laakiin marna ma dhacayso dawladnimada aan naqiin shalay oo aan hibanayno waa midaan sheegay calool waxay ku bukoto laguma daaway dib looguma noqon karo yaanan marka lagu kadsoomin arrimahaas aan leenahay waxa soo haray marka dadka Soomaaliyeed aan rabaa inaan la wadaago war intaas oo isku toosan oo dastuur qabyo ale oo maxaan ku iraahdaa shuruucda badankeedii leh oo waxay u habaysan yihiin dadka hore u dhaqaajiya laga kari laayahay war wax ku dara wixii hore inaad jijibisaan ha ku mashquulinina waxaan 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 dhiman ee hal iyo 2 kale ma ku dari kartiin fadlan ku dara aan idin kula darno war maxaan ku iraahdaa dhinacaasa wadada naga jirta aan aadno dadka lagu kari laayahay oo ilaa iyo maanta sharciga si uu tumanaan la garanayo waa la garanayaa baarlamaanka federaalka guddoonkiisa la bedelay wixii ka dhacay baydhabo wixii ka dhacay galmudug waxa hadda ka socdo kismaayo wixii ka dhacay maalin walba magaalada muqdisho iyo dadka ku nool caasimadda jamhuuriyadda sida ay u taalo dadku inay noolaalaayeen dulqaadka dadka muqdisho ayaa dawladdan ku jirta dulqaadka iyo dawlad jacaylka ay qabaan dadka muqdisho laakiin hoggaanka waxaan leeyahay dadka yaan laga dabageynin horena waa u dhahnay mar kalena waa ku celinaynaa
dadka maragga laga daayo inay noolaadaan oy dhaqdhaqaaqaan oy dareemaan qabkooda inuu kor jiro ha loo daayo markii waxaasi ay waayeen shalay wixii dhac waa la garanaya maantana wixii shalay dhacay dadkii ogaayay xanuunsanaya dhowraya weli oo la warmaya war meeshii shalay uma noqon karno war wixii shalayna ma anfacaan laakiin wax walba xuduud ay leeyihiin hoggaanka waxaan kula ballamaynaa kula dardaarmaynaa dadka in aanay ku geynin meeshii ay waxaan nidaamkan federalismka iyo dalku inay tashadaan wuxuu u yahay isbuunyo u dhaxayso oo inay isku dhacaan ka ilaalinaysa waxyaabaha dadku ay ku kala duwan yihiin dowladnimada federalismku waa isbuunyo isku dhaca iyo xanuunka iyo jugta kala ilaaliso oo qolo walba gooni ugu yaraan intii jirka dhan oo wada xanuunsanahay qayb ka mid ah haddii jirka xanuunsan tahay inteena kale inaan u gurman kismaayaa dhibaato ka jirtaa maahano war aan aadno annagoon dowladda ahayn maanta aanan hoggaanka ahayn dadaan u dirnay odayaalaan u dirnay niman siyaasiyiinaan u dirnay waxa ka socda meesha inay dhex galaan wax badanna waa ka qabteen laakiin doorkii dowladda ka maqan dowladdu iskuma dayin haddii kismaayo wax ka qaldan yihiin in wax la saxo laakiin dowladdu mar walba dabkay muxuu shidaal kusii shubaysay dabkay shidaal kusii shubaysay in holcu intii hore kasii dheeraado oo kasii waxaysmo ka waxayso ilaa iyo wixii shalay dhacay ay muxuu ahaaye ay soo gaarto waxaan rabnaa intaas waaye aragnimaha mugaan leenahay marka maanta dowladdeena maxaa lagu aamini karaa waxaan rabaa dadka soomaaliyeed aniga aragtida aan qaba la wadaago xitaa waxa dowladda lagu aamini kara waa soo yaraanayaan maalin walba mustaqbalka ummaddan in lagu aamino maalin walba xuduudda lagu aaminaada kalsoonida ay dowladdu qabto maalin walba waa soo yaraanay maalin walba waa soo yaraanay maalin walba waa soo yaraanay dowladnimada iyo sharciyada dowladnimaduna waxay xoog leedahay hadba inta kalsoonida dadku ay qabaan oo dowladda ay ku qabaan oo hoggaanka ay ku qabaan intay ballaaran tahay oo weyn tahay ayaa hadba ay la eg tahay sharciyadda iyo dowladnimada muxuu ahaaye dadka soomaaliya dowladdeenu ay yeelan karto marka waxaa walwal badan aan ka qabnaa walaac aan ka muujinaynaa taasi inay maalin walba dib usoo dhacayso soo yaraanayso oy soo waxaysmayso dhaqanada aan macnaha lahayn oo dadka in laga dhex shaqeeyo aflagaadeynta cayda maxaan ku ihahdaa waxa ay dowladdu ay ku bixiso maxaa qarashaadka iyo waxa ay maanta shacabka soomaaliyeed in aanan muxuu ahay madaxdu aanay dhaqdhaqaaqi karin maa muhiima in loo sheego mase wiilasheena ayagoo dalka difaacaya ku dhintay shalay iyo daraad ee qaarkood meydkooda weli banaanka yaalla ayay tahay dadka in lagu mobilize gareeyo kuwii dhaawacayna aan daaweyn kuwaasna aan reerahoodii iyo ayaga aan muxuu ahay waxayna ayaa muhiim ah dowladdu maxay uga shaqayn lahayd waxaas maxay u arki lahayd u aadi lahayd muhiimadda ay leedahay hebel ma dhaqaaqi karo hebelna ma bixi karo hebelna ma hadli karo hebelna ma yeeli karo intay leedahay dadkan waa hadlayaan waa dhaqdhaqaaqayaan waa soconayaan muxuu ahay qaanuunka iyo nidaamka ayagoo ilaalinayo marna aanan ku xadbin laana annagu laxa jecle badanaa dowladnimada naga hayso khataraan u qaadanay riski badanaa u marnay wax badan aan muxuu ahay culays ahaan soo aqbalnay maanta dastuurka aan maan walba ku celinayn dastuurka aan mar walba ku celinayn waa qabi waa run inuu qabiyo yahay laakiin adeerow gacaliya shalay asigaan ku kala baxnay asaan ku meel marnay si aanu cillad iyo ceeb u imaanin aan annagoo joogno dowladdii aan qabkeenna iyo wixiina aankeen aan gaabino si aan u qancino dadka kale inay dowladnimada ku qancaan shalay markii meesha lagu doortay madaxweynaha la isugu imaanayay nidaamka meelay ka dugsanayd ma lahayn baarlamaanka dhexdiisa la isku dooran karaa baarlamaanka hala joogo waa dhihi karna dadka qulubtooda iyo waxaan ilaalinaynay iyo muxuu ahay ra'yigooda in badanoo dadka siyaasiyiinta dalka joogta ah waxay rabeen muddadii waa gaari weynay hala sii kordhiyo muddada waxa lagu daro inaan iska sii joogno oo lagu daro waa jecleen cid nagu qabsan kartay iyo cid noo diidi kartayna ma jirin dhaqanka dowladnimada suuban in la ilaaliyo teeram hadduu jiro teeramka dowladdaani ee fafaalaha ka muuqdahay waa inay dastuurkan ixtiraam u haynin dastuurka haddaanay ixtiraam u hayninna teeramkan ixtiraam uma hayso waxaan u sheegaynaa in teeramka hadduu dhammaado uu dhammaaday waxyaabaha hadaaqa oo laga dhex sheegaayo ayaga iyay wakti badan isaga dhuminin soomaaliya waa ka timiday meeshii qofka rabitaankiisa ay ku shaqayn jirtay dadkuna waa ka yimaadeen oo rabitaankooda ayagoo ku shaqayn kara rabitaankooda meel iska soo dhigeen kuwii shalay dagaalamayay oo ciidamada haysta oo madaafiicda ridaya ayaa magaaladan jooga dalka dhan jooga kuwii shalay dagaalamayay oo madaafiicda ridaya ayaa maanta waxay leeyihin war heedhahaya dastuurka aan ilaalino war dastuurka ha lagu dhaqmo war dastuurka hala ilaaliyo midaan shalay wixii dhacay ogeyn maanta inuu yiraa maya dastuurka lagu dhaqmi maayo anigaa muxuu ahay waxayna
macquul maaha madaxdu shacabka markay ixtiraamaan ayay ixtiraam helayaan qaanuunka markay dhowraan ayay dhowrma helayaan ayagana la dhowraya shacabka hadday ixtiraami waayaan ixtiraam ma helayaan qaanuunka hadday dhowri waayaanna dhowris muxuu ah ma helayaan waxaan mar kale cod dheer aan ku celinayaa dowladda federaalka ah iyo hoggaankeedu xukuumadda iyo madaxweynaha oo shacbigu ay doorteenba sida ay wax ku wadaan sax ma ahan waddadaas inay beddelaan waddada ay haayaan meel xun ay ku dhammaataa qar dheeray ka dhacdaa oon laga soo noqon karin waayo aragnimaan u leenaha waa soo joogna dalkan 30 sano dowlad la-aanta ayaan soo joognay wixii dhacayoo dhan shalay siday noogu muuqdaan ay noogu muuqdaan weli ka jooga haddaa adigu ka maqnaydeen dalka odan jooginina war annagaa soo joognay waddadii lagu dhumay waa waddadan ha qaadinina ka leexda dadka ka daaya maragga iyo cunaqabataynta iyo dhibka dadka ka daaya tahdiidka iyo maxaanku idhahda xorriyadda dadkaani waa dul qaateen waxa ay maanta u dul qaateen wax badan oo kamida looma dul qaadanin shalay laakiin maanta dadka maadaama dhibaatada soo arko laakiin dee wax walba xaday leeyihin xadkiyaa laga bixin rabaa ha ka bixinina oo dhibaato inta ka weyn yaanay noo imaanin dowladnimadan taageersannahay dalku inuu dowlad yeeshaan rabnaa deganaanshiyahaan rabnaa dal kale ma qabno baasboorro kale ma qabno daaro kale adduunyada kuma lihin meeshaanaan ku dhalanno ku korno wax ku baranno ka soo shaqayno welin inaan joogno ka shaqayno rabnaa laxa jeclaa naga hayso meelan anigu dalkan hadduu xumaado meel kaloo aada ma aqaano oo ku bedesho war ninkaan meel kaloo aada lahow dalkaan nooga cayaari malaayiinta soomaalida dalkan joogtana meel kale ma qabaan adeero haddaad meel kale qabta adigay ku jirtaay laakiin dalkan iyo degaankiisa iyo dadkiisa ha ku cayaari karaamo xumo iyo sharaf xumo iyo taarikh xumo adna yaanay kaa raacin oo weligeed aan kaa hari doonin aada iyo aad ayaan mar kale waxaan uga xunnahay wixii shala dhacay madaxweyne sheekh shariif waxaa lagu sameeyey astaan iyo fariinay dadka soomaaliyeed oo dhan u tahay qof kastoo soomaali ah oo muwaadin caadi ah muxuu fili karaa marka odayaashii qaranka ee dalkani asiga oo 22 sano marna dowlad la-aan ahaay marna dowlad ku meel gaar ahay ka soo saaray iyo kuwii ka dambeeyay dowladnimadii xamar iyo iskool bulisiyo ku koobneeday inta baahiyey jamhuuriyadda afarteeda gees geeyey haddii aanay dowladnimada dhexdeeda ixtiraam ku lahayn muwaadinka caadiga ah iyo hooyada caadiga ah suuqa bakaaraha yaanyada ku gadanayso ama suuq bacaad maxaan ku idhahdaa mooska ku gadanayo maxay sugayaan waay war rajo xumaad wadaan rajo xumada joojiya waddada aad ku joogtaan waddo saxa ma aha ilaaliya dadka hana loo turo aad iyo aad u mahadsantihiin dadka soomaaliyeed mar walba waxaan kula dardaarmayaa nabad ilaalinta nabadda dulqaadka ay muujiyeen waa ku ammaanaya ha sii muujiyeen laakiin xuquuqdooda ha ilaashadeen xuquuqdooda ha ilaashadeen lama aamusi karo lamana caburi karo dadku xuquuqdooda ha ilaashadeen si nabad ah oo nabadgelyo ku jirto ha u ilaashadeen laakiin yaana yeelin in muxuu ahay la abuse gareeyo oo maxaan ku rahaa dastuur qaanuun la-aan in lagu dhaqo qaanuun la-aan in lagu dhaqmo yaanan la yeelin marna yaanan la yeelin laakiin haddana nabad waxa aan rabnahay nabada ummadaha adduunku waa aragteen cod iyo nabaday wax ku doontaan madaafiic ma ridaan ma dilaan qarax iyo balaayo iyo muxuu ahaa dhib kuwan argagixisada ah nabaddiidka ah noogu filan colaad kale iyo dagaal kale ma geli karno laakiin codkeennoo midaysan aan ku hor istaagaynaa wixiina dhibaayo codaan ku hor istaagaynaa talaan ku hor istaagaynaa waddadaan soo istaagaynaa mayaan leenahay mayaan ninkii yidhaahna ma aha inuu dembi galay marka waxaan leenahay dadka soomaaliyeed nabadda soomaaliya nabadaan mar walba ku celcelinayaa waxaan ku celcelinayaa soomaaliyey xaqa aada leedahayna ilaasho ha ogolaanin in lagugu tacadiyo oo xuquuqdaada sharcigaas iyo qaanuunkaas wuxuu xaqa uu ku siinayo ilaasho oo midii maxaan ku ihahdaa diinta islaamka ay kusiisay ilaasho walaqad karamnaa bani aadama ilaahay yaa qur-aankiisa karaamkaa ku yiri qawaaniinta oo wadciga aan leenahay dastuurkeenu ugu wen yahayna xorriyadda ilaalinta qofka iyo xuquuqdiisa aadanaha iyo xuquuqdiisa muwaadinnimo way caddahay adigaa lagaa rabaa inaa ilaashataan leh dadka soomaaliyeed aad iyo aad aa umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi